dambeyntii sidaasan cashadii ku soo diyaariyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالق أسود ودواد ميل البدني دعالة دك شوكتان عادي أدبان دي سلامية ولا لا قالق كنا كيجا كحران مالي ونكسنا يعني دي له هاي ما أنت فلوجير أو سوق عيانو بحي حيسيق لي دكان كهش أم كويه وشوب بنكسر ميسانية عرورتها إن شاء الله إلى الصعدة وحدة. هذا كردهاس أما توبك يرير بنهبلا يرير ويجيا إن شاء الله وحي قنعية ينك قاعد الدونة هدي لها يقدروه وأنا يجيا مربى مدبان له تن إن شاء الله تي أنا بقوم بنقادن دونة هذا قيب كلامي قيب تنابي له قروح بدن مركا إن شاء الله إلى الصعدة. waxaan galabta waxaan inoo wadaa canjeero Ethiopian waxaan ka sameysanayaa daqiiqdaas halkan waxay yaala hilibkii iyo basal marka beed iyo qudaar kale ay raacayso insha Allah qaybaha kalena waan idin la wadaagaya imka inta baan idin tusay daqiiqda waxaan gashanayaa ovenka insha Allah way la soconaysaa daqiiqda hadda waxaan ku shubtay sixin xigan waa sixin ovenka lagu gashado cuntada waxaan gelinayaa ovenka waxaan doonayaa inay brown noqoto marka ovenka gelinaya ilaa 5 daqiiqo ay ovenka igu jiraysaa brown markay noqoto ka soo saaraya insha Allah way la soconaysaa hadda ovenkii baan gashaday inay brown noqoto ayaan rabaa insha Allah ila socda hadda waxaan ku shubanayaa saliid baa dabka ii saaran digsiga ku shirtay hilibkii baan ku shubanayaa jiirka ahaa hilibkan shiilan insha Allah ila socdo waxaan qooshanaya daqiiqdii waxaan ku darsanayaa milixda baroonkaana way ii noqotay ma sha Allah waxaan kala ku darsanayaa liibitadaas ama fixiso aad bas u taqaaniin soo ku darsanaya waan qooshiya markaa ila socdo isaga wax qudaar uma isticmaali doono shiilimaadkiisa lagu isticmaalayaa marka insha Allah saas uu ku shiilmay hadda waan ka guranayaa hadda halkan waxaan ku diyaarsaday suugada canjeero Ethiopian ka lagu cuni lahaa ama hilibkii gaar baan u shiishay halkan waxa iga yaala waa basal ugu yaraan waa 1 kiilo oo basal ah oo basashu markasta cuntada ku badsato waxay ku taraysaa macaan ma sha Allah canjeero Ethiopian kana suugadeeda basasha in lagu badiyo aad iyo aad muhiim u tahay halkan waxa yaala 3 midh oo xabuuba ama yaanyo basal taqaaniin
وبربروني حل حبة بربرونية هلك waxaa igu jira baamiye iyo basal baar halka waxaa igu jira barbarooni shiidan huruud cuntada loo isticmaalo filfil iyo maraq digaag marka insha Allah halkan waxay taala tirtir iyaduna daasadaas aan isticmaalaya insha Allah ila socdo digsigii waxaan saartay shooladii waxaan ku shubanayaa saliid aad u badan ma isticmaali doono waxaan ku shubanayaa kala basashi هذا بصشي كيلي دماي بصشي عمرك aan shiilay taas ay noqotay intaas aba ka soo hadho saasi dhimatay waxaan ku darsanayaa khudaartii kale waa baamiyihii iyo basal baarkii waxaan kala ku darsanayaa xawaashiyadii waxaan ku darsanayaa xabuubkii tirtirkii isku soo darsay isku jarjartay ma sha Allah waxay noqonaysaa suugaad iyo aad u dhadhan wanaagsan ma sha Allah tabarakallah ayba kale hadhayna way la soconaysaan insha Allah taasina soo bislaanaysaa markaa kamsarihi iyo toontii bay hadhay markaa ku daro iyagana way dil wadaagay insha Allah hadda intaas isku daboolanaya hadda waxaan ku darsanayaa kamsara iyo toon aan isku soo darsaday هذا waxaan kala diyaarsanayaa suugadii kale iyadana lagu cuni lahaa xaaxda marka basal baan ku shubtay halkan hada waxaan ku shubanayaa qaybtii kale basashii saas ay igu guduudatay ma sha Allah waxaan ku shubanayaa miskii وصوصكي كلا قيتي كلا يعني انشالله ينقونيسا قيبتي كلا lagu isticmaalay canjeel xabashida saasay diyaar inoogu tahay waxa weeye misirtii suugadii horena waa idin tusay hilibkii ma sha Allah tabarakallah kana saas weynoo bislaaday saas diyaar inoogu yahay misir weeyaan misir baan ka sameeyay إن شاء الله قيبها هارين ويدل وذاقي ويدن تصيا استيباد ضمبيسا ينوغو صوفحدا حتى قيبتنا ساد ديار ينوغوها إن شاء الله يا عشان تبي أنتي ساعة سيوتش العسون طويلة العسو سيبوح ما شاء الله صفتي كوغو نقطة حتى مغلقها يكو شوفنا يا إلى الصعادة حبدي وهرسي سدا قروحدا بدل لا ينوغو بسلاتي ما شاء الله تبارك الله هدا وان كروغيا ساس دركتان بنوغو بسلاتي كبعد ساسا ينوغو سو دمينيا ان شاء الله قيبها دنبا marka soo wada dhameeyna way idin tusay xabadii horaan imka idin tusay dambeyntii sidaas cashadii ku soo diyaariyay oo miiskii ugu soo wada kompleet ku soo dhigay fruudkii canjeelo Ethiopiankii sambuuskaas oo isleeyahay la iskaga caweeyo bacda cashada oo isagana miiska iskaga soo diyaarsaday saas ay ugu dhantay fiidiyogan hadii aad ka hesho walaal qaali oo dan subscribe yahay waxaan ka codsanay subscribe saarto dad subscribe ku hore ila joogitay waa ku mahadsantahay jazakallahu khayr labada jeerba fiidiyoga xigeenteenu dib ugu kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.